isbeddelka cimilada waa masiibo adduunka dul hayaabaysa laakiin Soomaaliya waa masiibo hor leh oo hadda wajahaysa waxa dalkeena bad iyo bari haysta masiibo qayb ka mid ah aan gacanteena ku keensanay jarista dhirta iyo dhoofintooda ayaa Soomaaliya ku sii badanaysa dhirta qoyan oo la jaro waxa ay keeni kartaa nidaam guur ku yimaada deegaanka fatahaado iyo abaaro waa dhib si gaar ah u taabanaya beeralayda iyo xoolo dhaqatada oo Soomaalidu u badan tahay tani waa dhibka ugu badan ee nagu socdo balse waan ka hurdnaa isbeddelka cimiladu waa marxaladda ugu weyn ee ummadeena Soomaaliyeed ka barakaysa dhulkooda sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya waxay la daaladhicisay abaaro iyo inay xoolii dhamaadeen oo sawirro qurxoon kaba imaanin Soomaaliya sawirrada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajin waxa dhacay abaar ba'an sawirrada dhulkii ka yimid qalbigay dhaqaajin olihii dhammaada ee dadkii baa dhimanayay wixii dhigla oo kacaa olihii dhammaada ee dadkii baa dhimanayay wixii dhigla oo kacaa waxa la joogaa xilligii aan hurdada ka cilaan si aan u joojino jarista dhirta iyo dhoofintooda ku soo dhawow kooriska maqal iyo muuqaal kooriskani waa kooris lagu baran doono hagaajinta maqalka iyo muuqaalka iyadoo la adeegsan doono softwareka Premiere Pro iyo Socrates softwareka Adobe Audition oo kamid ah softwarada caalamka ugu wanaagsan dhanka editing qof kasta oo qaato kooriskan waxa uu awood u yeelan doonaa inuu diyaarsho muuqaal qurux badan kaas oo dadka daawanaya u sahlaya in ay si wanaagsan u fahmaan ujeedka muuqaalka koorsadan waxa ka faa'iideysan kara qof walba oo doonaya inuu horumariyo xirfadiisa maqalka iyo muuqaal hagaajinta faa'iidooyin kooriska laga helayo waxa kamid ah 1 muuqaal tayeysan 2 عشرة كبدن 20 عشر oo qofku marka uu qaato awood u yeelan doono inuu hagaajiyo nooc kasta oo maqal iyo muuqaal 3 project dhameystiran oo loo dirayo qof kasta oo qaato kooriskan 4 barashada maqal hagaajinta 5 barashada muuqaal hagaajinta 6 shahaado cadeynaysa qofku inuu qaatay ama dhameystay kooriskan waxa qaadan kara kooriskan qof kasta oo yaqaan aasaaska kombiyuutarka ama bilowga kombiyuutarka qof kasta oo barta xirfadda video editing iyo sidoo kale audio editing waxa awood u yeelan doonaa inuu sameeyo shaqo asaga u gaar ah wixii faahfaahintaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada kaaga muuqda shaashada mahadsanidin